السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرينتان waxaa idin soo gudbinaysaa SSG Save Somali Generation. waxaynu ku socotaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay kaga nool yihiin daafaha caalamka. Save Somali Generation waa urur u istaagay inuu dadyoga Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka iyo kuwa ku nool gudaha ku wargeliyo xanuunka dhibaatada qatarta ay jirta maanta ay indhaha laga qabsan karin. sida la socotaan walaalayaal muddadii dawlad aantaan ahayn 20 sano badaheen waxay noqdeen kuwa laga kalluumaysto qashinkana lagu soo fogay. maanta badda ama xeebaha Soomaaliyeed waa kuwa khatar ah oo aan la isku haleyn karin. dadyogeena ku nool xeebaha ku tirsan Muqdisho ilaa Boosaaso waxay khatar ku sugan yihiin maanta oo qaarkoodna ay maanta la ildareen la xanuunsiin cudur aan la garanayn oo ay sababeen suntaasi. waxa dhalanaya maalmo dhalanaya ilmo kala dhiman oo kala maqan ama disable ama curyaana. khatarta ay leedahay waxaan filayaa inaad ka wada daragsantihiin sunta radioactive-ka ah. waxaad la socotaan caalamka maanta in markii Japan ka dhaceen waxyaabihii awgeedeen shadii quwadda energy maartay nuclear-ka markii ay wax ku dhaceen in caalamku uu gurmaday in laga qaxay inta Soomaaliya sababtan wax kala maahan waxay ogyihiin waxyeelada radioactive-ka. Soomaaliya cidna uma maqnaceen lama qodna 20 sano ee aan dagaalada sokeeye ku jirnay waxa ka xanuun badan kana masiibo badan tan maanta suntaasi shacabkeena ay ku qabaan ama ay u keeni doonto. shakhsi kasta oo Soomaaliyeed waxa mas'uuliyad weyn uu ka saaran yahay ama ay ka saaranta badbaadinta shacabkeeda iyo deegaankeeda iyo dalkeeda. dadka Soomaaliyeed ee ku nool xeebaha Soomaaliya waxay maanta la ildareen cudur aan la garanayn. xoolahoodu waxay kula anayaan sida warbixin lagu helayo deegaano xeebeedka Muqdisho inta u dhaxaysa Hobyo ilaa Boosaaso in xoolo badan ay ku laadeen in dad badan aysan ka dhiiga keeneen dad badan inay gudaha dhiig ugu furmay dad badan in mataqaana cudurrada maqaarka ama jirkooda uu isbedelay caruur badan ay ku dhasheen calaamado kala duwan oo runtii ku argagax gelinaya qaarkood ay curyaan ku noqdeen caloosha intay ku jireen waxyaabo badan aan la soo koobi karin. haddaba marka sida muuqata Soomaaliya cidna uma maqnaceen lama qodna dadkeeduna waa kuwa ayagu iseysta tan laakiin masiibadani maanta waxaan rajaynayaa Soomaaliya midoobi doonto ay garan doonaan dhibaatada laga dhaxli doono inay tahay mid halis ah oo aan indhaha laga qarsan karin. shakhsi kasta oo Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaynaa aan kula dardaarmayna inuu u istaago wacyigelinta iyo ka hortagga arrinta khatarta ah. si aan la socono walaalayaal annagu hadafkeena ma ahan inaan maanta investigation aan ku sameyno ama aan dabagal ku sameyno sababaha iyo dadyogii ka dambeeyay in sunta badaheen lagu aaso oo taa waxa awoodeeda leh mustaqbalkan aan ka rajaynaa haddii dawladdeedu noqoto dawlad awood leh inay la xisaabtanto ama lagu sameeyo baaris si looga qaado abaalgud inta ku hartay badda ku jirtana ay lagu xukumo inay ka nadiifiyaan. laakiin maanta anaga taama awood tabarta iyadana ma ahan. hadafka SSG waxay tahay in haamanka banaanka yaal ee mirirka ah oo xilli walba ay garaafa gaari karto ee khatarta ah in shacabka laga qaado laga fogeeyo laga asturo. haddaba sidee taa ay ku dhacaysaa ama ku dhici kartaa waxay ku dhici kartaa adigoona join gareeya adigoo noo muujiya taageero. shakhsi kasta oo arrinta u istaagana waan ku taageeraynaa. haddii annaga u istaagna in annaga nagu taageertaan inaad noo muujisaan taageero buuxda si aan ugu wargelino haddaan gaarno 2 milyan oo qofood ama 1 milyan ama 100,000 oo qofood oo isku hadaf oo isku af ah waxaanu awoodnaa wax badan inaan wax ka bedeli karno arrinta inaan dacweyn karno caalamkana tusi karno
dhammaan journalistiyaasha dhammaan dadka ku shaqada leh saxaafadda waxaan ka codsanayaa ee Soomaalida ah ee wadaniyaasha ah ee ka xanuunsanaya ama ka gubanaya dhibaatada baasha laga dhaxli karo jiilkayagana dhibaatada u keeni karto inay tagaan dhulka ay ku jiraan hamankaasi si ay caalamku ayaguna ay proof la cadeyn karo la taaban karo ay u tusaan waxyeelada dadweynaha ee ku qabaan isbitaalada localka ah ee deegaanada ay tagi doonaan shaqsi kasta oo Soomaaliyeed waxa mas'uul ka saaran yahay arrinta wax ka qabashada maaha mid SSG ku kooban waa mid inagu aanu mas'uuliyadeeda wada qaadayn mar kale waxaan idin leenahay SSG Save Somali Generation inaad nagu taageertaan inaanu wacyigelin ku sameyno dadka localka caalamkana ku wargelino iyo dadka ku shaqada leh in hamankaasi khatarta badan ee banaanka yaala ee mirirka in shacabka Soomaaliyeed laga fogeeyo kuwa hadda xeebaha soka ee biyaha dhexdooda ku jirana baaris lagu sameeyo si loo soo saaro dibadeedna la geeyo meelaha ay ku habboon yihiin waxaan idinka codsanaynaa mar kale ereygan inaad faafisaan inaad shacabweynaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaad ku wargelisaan khatarta ay leedahay toxic waste iyo radioactive-ka kana xanuun badan tahay dhibaatadan maanta aan idin sheegayno 20 sano ee dagaalka sokeeya ee boqolaalka kun milyanka qof ee aanu anaga gacmaheena isaga dilnay gaajada noogu dhimatay colaadda ku dhimatay qaxa ku dhimatay saxaraha ku dhimatay badda ku dhimatay tan baa ka xanuun badan ilaa haddana beesha caalamku dhagaha ay ka furaysanaysaa sababaha soo socda jira awgeed meeshan dalal badan ayaa ku lug leh dowladda Soomaaliyeed maanta la xisaabtami kartana meesha kama jirto taas ayaa waxay keentay markaa in ay ka gaabsadaan beesha caalamka annaga laakiin waxaan dhahaynaa aan runtii aan ka qari karna maahan waxaan idinka codsanayaa mar kale inaad gacan ka geysataan nagu taageertaan idinna waan idinku taageerayn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.